asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada janalka xiisaha dunya maanta waxaanu halkan idinkugu soo gudbin doonaa khilaaf u dhexeeya dad walaalo ah kuwaasi oo kale ah DJ Zubair iyo jalaaga caanka ah ee loo yaqaano Abdiliban. Haddaba khilaafka maaragtay labada dhinac ayaa yimid kadib showgadii xiriirka ahaa ee uu Yurub ku dhigayay fanaanka caanka ah ee Sultan Seraar. Haddaba intaynu gelin maaragtay khilaafka waxa keenay oo inooga warami doona waxaan ku raada Abdiliban aynu isla eegno maaragtay Abdiliban oo dhowr jeer internetka ka duqeeyay DJ Zubair. biyuhu keena hala gubo timuhu suubinaya hala gubo meelaha timaha lagu suubinaya hala gubo war xamaray ka jooga masiibada iyo fasahaadka adinka maxaa leedin kula soo ordaa horta adinka meeshiina maxaa leedin kula soo ordaa horta meelaha kale taa la geeyno meeluhu ka soo jeedo hala geeyo masiibada yacni xaasinimay ka tahay inuu DJ Zubair intuu idin imaado inuu sheebaara idin furfuro dad waxaa tihiin miyaa oo aan waxba akhrin war waxaa ninkan oo idin wada wadiinu rabbul kacba aakhirad la dhacaysan wallah rag badanoo waxaa la arki doonaa geedka uu istaagayba oo wada madhalays noqoteen waxaan la iska soo ceeriyo dulliga ah wallaahi buusan naxariis idin haynin reasonkuu idinkugu imaadayna wax kaleeta ma wada ogaan khilaafka waxa keenay waxaa waraysi lala yeeshay Abdiliban waxaana la yeeshay Cali Xaraare iyo TV-ga Somali America aynu wada daawano waxa uu ku jawaabay Abdiliban. waxay wax u bilaabeen fanaanka la yiraahdo Sultan Seraar waa nin in badan aan wada socono saaxiibeen Scandinavia show looga soo qabtay wadamada Scandinavia okay showgaas waqti badan aan galay rag iyo dumarba waxay sugayeen showga wadanka lagu soo hormari doono aniga waxaan ahaa marka qof always sheega wadanka uu imaanayo iyo qaabka uu u dhacayo dadkana ka codsaday inuu fanaanka soo socdo DJ-ga soo socdo la soo dhaweeyo qaybteeda marka waxay adan xayeysiin okay wax walba aniga aan suubiyay lacag la isiya ka sheekeynaysaa east iyo west loo kala baxay dad badan marka waxay i weydiiyeen khaasatan rag iyo dumarka joogo Scandinavia oo dhan Norway, Sweden, Finland, Denmark, everywhere, Germany waxay ugu dhaheen Abdiliban si fiican u qadaysa hadalkan dhan oo energy gale war sultaana soo socdo DJ-ga soo socdo hala soo dhaweey war hala soo dhaweey wiilka loo kaco boqortooyo family 8.9 million whatever aniga Snapchat-kayga ka dhahay dadkii aad bay ugu farxeen because wax walba soo tabinay laakiin ayagi waxay noqotay in yani ayaga waxay suubiyeen markii showgoodii dhameystayna wixii la kala qaybsaday tanna waa la kala yaacay laakiin aniga ahaan one penny anu kameen imsa qof baa ku daawaday markii aad xaysiiska ku jirtay aad u xaysiisay Zubair iyo Seraar wallahi dadka mostly 3 milyan 2 milyan 1 milyan iyo far yes dadka marka waxay suubiyaan videoyaasha challenge-ga iyo ayda ama aflagaatada ama buuqa ah midna way la baxaan Facebook iyo Instagram yani everywhere la gelina TikTok okay adiga DJ Zubair iyo Seraar dagaal afka mid isku qaadeen ama Instagram-ka ama Snapchat-ka horta ma jira waxba naga ma dhaxeen ayaga wax dagaal ah ma jirin way arrintii waxa ka careysiya marka waxa iga careysiya ku sheegaa wadanka hadda aan joogno qof bini aadan aan waxba ka suubin ama dib ku geysan ina ku suubis frame waa qalad qofku wuxuusan ahayn ina ka dhigteed waa qalad qofku waxaad siin ina ku tilbaabto waa qalad ani waxaan ka xanaaqa marka dad waxay dhahayaan 10,000 dad waxay dhahayaan 15,000 dad waxay dhahayaan yani waxa lagu siiyay weyna oo dadkan aad u dagaalamaysid so marka
arrin waxay igu noqotay aniga xitaa inaan ka aamuso xitaa ana ceeb igu noqotay because waxaana ma qaadan mugtaan okay markuu u horreysay shaqadan yaa ku dirsaday shaqadan horta kow waxa aniga igala soo xiriiray suldaan asagoo jooga weli jigjiga dan suldaan intaasaan wada soconay saaxiibo ahayn waan isku xirnayn ma aqaanatay waxa qaaday ma xagga hunguriga miyaa ma aqaan ma lacagti baa ka gashay dee lix jeclo miyaa ma aqaan laakiin afkiisu wuxuu iga dhahay abtiliibaan showga markuu ii dhammaado waxaa igu ballan u dhahay lacag aan xawlaad ever qof loo soo dhigin inaan kuu soo dhigo aniga waxaan ku dhahay niyow lacag markaa tirahay even dollar is lacag moogta $10,000 is lacag $1 is lacag okay meeqaa ku qiyaasayaan dhahno wuxuu dhahay niyow 15 above 15 wixii ka sareeya wixii ka sareeya way number waaweyn aan sugayay moogtaane way laakiin showgii marka uu dhammaaday horta Ethiopia markuu joogay ninkan xagga social media waa nin xoogaa iska afkaaban moogta qofka been lagama sheega moogta Ethiopia markuu joogay baa sheeko waxaa la soo dhajiyay Suldaan Serar wiilkiisa dhintay way anigu isoo wacay waxaan ku dhaaniyo ka seexataas waan galay Snapchat-ka waxaan u sheegay dadka reer Scandinavia Suldaan Serar inuusan cunugiisa dhimanino arrimo xagga Ethiopia ah oo showyaal ka socda Ethiopia inuu u baaqday dana next night uu soo baxayo wali waxa la qarinayo wadanka uu kusoo dagayo in xoogaa jilaafo loo dhigaa la diidana okay waan gartay taas laakiin aniga markii aan dagaalka si fiican ula galay qof walba oo aniga Snapchat-ka igala socday marka uu maqlay aniga wax ma qaadan qof walba saana ka saartay te waa ceeb totally